كنت سهرة شوف بسم الله الرحمن الرحيم. ونستقبل أولنا شركتي دي لايك اليوم. كل ديوان قرني وحصل عندي نريم إسكراوي مع محمد يونس. ويوميه يقولي يوكا هذا سنة ويجي أنا بمدة السؤال الآن أولا وقرنا ساعة شرياش وينها حق عقدها أزعلها فكرنا في أنت صبر شيء أحمد عمر أو قراءة أمباسطورك السومالي لان أفضل وضعك إنجليزك وكل ما عن فيليين حراي سوبرتين مرة كمدنا هانجري مايكي حفظة تاوى عملة فكا حفيليا برشاد إنه أنت هسيكو لما أنت هسيكو أكتاي دي رهاي كتيجايو فكا وحاف عندي لين إسكا قلبنا عندي أجندها يوحي إنه يلا waxaan ugu horeysiin lahaa horta runtii berigii hore caadiyan marka shirarka sidan oo kale aynu soo qabsano shirka waxaa laga dooran jiray shir guddoonka ayaa la oran jiray maalintaa hala doorto laakiin maadaama annagu aanu soo ahayn guddigii qabanqaabada oo hawlo badan soo samaynay wax badanna xogogaal ka nahay waxaanu isnay halaynu ku karaameeyey maanta in idinku shir guddoonkii aad sidaa ku wadaan waxaana jeclaan lahaa inaan halkaa wax kolley dhibaato ay ka jirin marka maxaatib anoo asaxisaan marka runaantii inaan shirka ka ansaxansano ayaanu doonaynay runaantii marka waxaan jeclaan lahaa haddii wax objectioni jiraan in dee qofku si xishoodna farta u taago haddii aanu jirinna waxaan jeclaan lahay markaa inaanu sidaa ku socono haddii ilaahay ka dhigaayo marka waxaan u qaadanayaa inaanu waxba jirin marka waxaan filayaa in sidaa lagu ansixiyey shir guddoonkii maanta inoo shir guddoominayay shirkeenna conference-kan aan isugu wada fadhino marka aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin waxaan ugu horeysiinayaa qodobka 7 oo aan doonayo informationkii guddiga preparationka sidii wixii aanu soo qabanay waxaana ka hadlaya Faarax Xasan Jagac waxaan jeclaan lahaa inaan Faarax Xasan Jagac ku soo wareejiyo haddii ilaahay ka dhigo بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمر الدين والدين لا إله إلا الله دمان ذلك هذا المسلمين ومع سنتي دمانتي وآتي أعظم هذا ذلك وقتك على وقالت منه بني لفتي سنين يكسر بني بايش وين أكل وسوي هذا ما تنو ما تسجل وما تنو أمرية هذه النصور والله ماشى كورن الشركة جودة الغلابة وحروضه تشوينه كذا عي بريستول بشي لو يتمنى تدري توكي وأنا ما عاوي جودي فرنت أيوكي sidii ay guddigii badideedu ay xoogayaan ka ahaydeen guddidu ay ka koobnayd 23 xubnood
shirkii ugu horeeyeyna waxay guddidu qabsatay qabanqaabadu labadii bishii koowaad 2012ka laamaha ka soo qayb galay shirka waxaa ka mid ahaa 4 laamood oo London East London, West London, South East London, and North London. Waxa uu heliyay Bristol, Cardiff, iyo Manchester, iyo Milton Keynes. Laamaha ka mid noqotay waxaa ka mid ahaa shirka Liverpool iyo Birmingham iyo Sheffield. waxaa dadka ka soo qayb galay shirka tiradoodu waxay dhammaysay 15 xubnood oo laamaha ka kooban. shirka markii uu furmay ayado quraan lagu furmay duca kadibadii waxaa la guda galay in lagu gudoonkii la doorto 3 xubnood. 3 xubnood Ibrahim Maxamuud Cali oo uu gudoonka maanta gudoomiyaha shirka ka halka fadhiya Ali Aadan Awaare oo haya guddida qabanqaabada iyo xariir xirsi adan oo xiriiriya loo doortay. waxaa kale oo laga doortay madasha iyada ah 4 xubnood oo dib u eegis ku sameeya xeerka hoosaadka xisbiga kulmiyeeyuuke oo kala ah Khadar Warsame, Cabdirasaaq Ibraahim Kooshin Alfo, Cabdi Cali Mahdi iyo Cabdi Daahir Camruud. 4 xubnood waxaa loo doortay inay dib u eegis ku soo sameeyaan xeer hoosaadkii kulmiyeeyuuke sooma wax ka bedela ku soo sameeyaan. كبعدي إن يقولون كسر عليان نقول أي يقولون كسر عليان كمان قالوا يلو لون يهيسين لو سوى ليسوا راعو أو لون ما يسترو وقدامين وحنا سوى هراسات كأي صور ما يستران بيش شنية تبين كيدي بيش الكوبات شنية تبين كيدي سي أي يقولون كمان قالوا si dhammaystirto uguna diyaariso shirweynaha maanta sidii loogu ansixin lahaa. waxaa la isla gartay inay guddidu fulintu ahaato 13 xubnood sida ku cad xeerka hoosaadka xisbiga kulmiyeeyuuke. waxaa kaloo wada galay dhaqaalihii lagu maamuli lahaa iyo munaasabadii shirka lagu qaban lahaa iyada ah. dhaqaalahaas waxaa lagu qiyaasay $2,200 geniga ingiriiska. arrintaa iyada waxaa loo xilsaaray guddigii loo xisaaray 3 xubnood oo Cabdi Cali Mahdi iyo secretarygii ninkii loo oran jiray almaan baan leedahay Ali Aadan iyo gudoomiyaha inay madasha iyada soo diyaariyaan oo ay meel munaasiba oo shirka ku haboon ay la soo dhigo. lacagta tiradeeda iyadana waxaa laga yaasay in lacagta laamuhu ku soo xereeyaan bishii 15keeda bishii 15keedii. lacagta waxaa loo qeybiyey laamaha UK oo 4 laamood oo ay ka mid tahay meesha la yidhaaho West London 300 gini
East London 300 oo gini North London 300 oo gini South East London 100 gini Manchester 100 gini Birmingham 300 oo gini Bristol 300 oo gini Sheffield 200 oo gini Liverpool 100 gini Cardiff 200 oo gini Milton Keynes 100 gini waxaana lacagta loo qeybiyey 15 xubnood shirka ka soo qeyb galay inay min waliba isagoo magaalo matalaya lacagta ay qaataan waxa kale oo la istagartay in 7 xubnood oo reserve ah la soo casumo shirka lagu soo casumo waxa la istaqaato kaleeto 150 qof dhammaan in golaha lagu soo casumo waxa halkaa la isla qaatay in xisbiga daddan cusub la geliyo oo maadaama iminka muddo dheer la kala maqnaa oo aan shir la isugu iman in xisbigii dib loo abaabulo oo daddan cusub la geliyo siiba gaar ahaan haweenka iyo dhalinyarada aad qeyb baax looga siiyo xisbiga waxa kale oo shirka ku xigay la qabtay 15 bishii koowaad 2012 shirka isaga waxa ka soo qeyb galay intii gudida qabanqaabada London ka joogtay number 1 Ibrahim Mahmoud Ali Aadan Halil Hersi Hassan Shaga Abdi Ali Mahdi Yasin Haji Abdullahi Maryam Ismaan iyo Kayse Xidig waxa la isaqaatay kullis weydiiyey dhaqaalihii wixii soo xirooday maadaama ballantu ay lacagta lagu soo xereeyo bisha haddaan soo ururiyo waxaa lacagtaasu dhammaan way soo xerootay waxyaabo yaryaroo maanta ahayd in gacanta lagu soo qaado dadkii ay ku dhinay la weydiiyey mooyaane balashii halkanaa la soo kireeyey oo la isku raaco meel munaasibo noqotay waxaa la isa soo qaato oo loo diray inay TV-da ay yimaadaan si shirki waqti ku habboon loo sii daayo oo degdega waxaynu doonaynana ay uga soo baxda dunida tacliimadeeda oo dhan looga dhegeyso guddida qabanqaabadu waxay aad iyo aad ugu mahadnaqaysaa dadka ka soo qeyb galay nolosha iyaga ah ee kolley maadaama shirka kale uu ahaa shir dadka lagu abaabulo wax badan baa halkana kusoo noodgeliyay laakiin waa iskhilaafaya waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan dadka ka soo qeyb galay shirkan isaga ah wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda la taliyaha madaxweyne ku-xigeenka xagga dhaqaalaha madaxweynaha warwaraha raamaha adiga ahaa waxaa dad baayoodayaane iyo ambaasador axmed haajaba dhammaantiin iyo masida sharafta leh ee kale aada joogta iyo dhammaan raamaha UK isaga wadiyi warwa iyo mudayaaqo waa mahadsantihiin dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم iminka waxaynu gudageli doonaa haddii ilaahay ka dhigayo madax badan baa idinla joogta runtii xagga hoosena fadhida xagga sarena fadhida sanadiin baa idinla joogta waxaynala joogta xildhibaano waxaynala joogta waxgarad fara badan kolleyba waqtigan haysanaan aad iyo aad run ahaantii u kooban yahay marka waxaan ku soo dhaweyn lahaa Axmed Cumar oo inooga warrama xaaladaha iminka uu soo inooga warramaya haddii ilaahay ka dhigo بسم الله الرحمن الرحيم كل هوري وسلامته جماعة سبادينتا ميرادا سلاشي وطان هو أي فقط تان هو هانا حق لنبان حق الدنبين حياة توي عن عوك لكن وكان كرسي
guddiga dhexe fadhiyaan jeerka in waxay ahayd inaan si xooga u qaybiyo oo ay ilaaka ugu dambeeyay ilaa kadib bixiyo caadi halkan marka hore waxaan guddiga u dirayaa guddiga soo qabanqaabisay shirka waa guddi active soo muddo dheer baan ismaqaanay ilaa 20 sanadood إبراهيم wuxuu ka dhawaajiyay oo aan aad iyo aad farahan ugu bagay markuu yiri sanad horteen waxay nahay mucaarad dib kale dowladahan baa jirta haddaan tusmaalayaa idin soo qabto ninka la yiraahdo Dennis Skinner oo ahaa labor activist oo ilaa intii hay'adda mucaaradka ay ku jireen 17 sanadood uu activist ayaa waxaa loo sheegay in lagu oran waday dowladda dhexe leebarkee mucaaradnimadii weli joojin halkii buu ka wadaa mucaaradnimada ilaa ana ka mucaaradnimadii sidoo ku wada iyadoo oo intaas oo sanadood ay ka soo wareegtay xilliga mucaaradka ah ilaa xilligii dowladda leebarku haysatay weli soo wuxuu yiri mucaaradnimadii inuu ku jiray Soomaaliya waxaan soo qatay dad badan oo halkan maanta jooga oo xisbiga deewal activist ayaa mucaaradnimadii weli ku jira ragga waxaa lahaa ka soo baxa dowladda tiina ogaad inay dowladda tiina qadiyadda iyo qaranimadu waa kala jab mabda iyo dhalashaduna waa kala jab mabdu waa wuxuu badanaa ku kooban yahay xisbiyada iyo sidayeen dhalashaduna waxay ku kooban wadanimada waxay intaas way isku waafaqan maanta ninka reer Somaliland u dhashay waa nin reer Somaliland haddii uu maxay toy qarannimadii iyo mabdinimadii iskaga khaldamaan waa mushkil oo rag badan oo maanta reer Somaliland u dhashay ayaa waxaa mabda'oodu yahay ma aan dhalashadooda ay ka soo jeedin oo ayna shaqada ku lahayn nana ayna garanay meel ka xigtaan halkan ka wadaana dad badan baa ila fahmaya koonfurna ninka maanta koonfur ku socdo waxaan ku bashaaray inuu kolada koonfur u dhawaan baa la iibinaya cidii ibsanaysa soo diyaargarooda marka intaas halkaas ku waafaqaya haddii aan ku soo noqdo hawlaha maanta siyaasadda ka jira hay'adaha Ingiriiska ma doonayo inaan guud ahaan ajandaha wuxuu yahay inaan waxa uu guda galo laakiin as a party activist iyo shicib ahaanba xilkiina maanta ayaa laga dhawaajinayay waan imanayaa dowladuna maanta ayaa sax dowladuna weligeed baba waxa weeye 1999 markay ku dhawaaqday Soomaaliya koobay maanta ayna dowladnimada ku kii markii la siiyay halkii aynu ka bilownay aynu ku nusay waqtiga dowladnimadeena ku nusay waxay nagu qaadatay muddo intaas sanadood wallahi mutalaab soo jeedin lahaa intaa ay ka masaxan taariikhda وهالكي أنا نحن كي أنا قبل ساعة قبل أن هالكي أنا حسابك شركة بصور غنية شركة نحن كنا حيا دوار مشينا دوت أسود دولار بس كنا ناس قضية دولار أنا وأبتي واحدة إنها حلب عن السعر هاتي أن الدولار النهاية تنشأ كنا هذا الدولار ده نهاية حلب عن السعر حوالي دائرة عن بلوك أوف تونو أو عن ميسك أو صار قضية الصومال عن واحد ما تفتح يصير الدور وياي حتى يصير شيء هذا يصير شيء ثاني هذا وشاغل لكن واحد تحاول له بود إن عن الساحل كلمة بدنا نكها قصوا كرسنا كوي هاي الشركة لفتيس سيدو ولا عيقة من قابض ولا عيق هو السعادة يرير الكوبا دولة كثيرة ما كانش يسوقش استيدن كانوا مركين ديبتو halkaas ay ka aamusaysaa wixii kale ee ka soo baxay shirka ka soo baxay markuu isku wadaadaan waa report baa laga qorayaa miyota loo dhiibaya shirka inta ka horeysa ayay haddaba hawltaa
hawsha taale waxa weeye halkan waxaynu nahay British citizen إننا نجمع حكتور دولة الإنجليز وهالكنا وحوي لوكين كلنا حكا حوي لوكين كلنا هالكن وحن حقولنا يعني أطرنا إمبياد إلى أطرنا محاية لوكلنا محاية برايمسر لوكلنا House of Lords أو سيستم هذا اللي استعماله تمرسلهم استعماله وإنه قضية إنه كذا وإنه ورد أنه قرار سنة اللي راح قرار اللي راح iyaga laftooduna run ahaan maanta heegan bay ku jiraan waxay diyaar u yihiin bal sababta kaliya ee maanta Soomaaliland lagu ixtiraafi waayay oo cad oo qoraal ha sheegay wixii hore lagu marsiiyo jiray Afrika ayaa ku shaqaalay qolooyinka jaarka u doonta xuduudadii hore ee la taaban jiray taaban maay la isla soo dhaaf ninkii qabayke ayaa mid aan aqoonin ku yiri shifo markaas warada waxa la yiraahdo soo qoosay sheeka kamaysa marka ingiriiska iyo reer galbeedka maanta le waxa u taal waxaana laga ka soo qoosay ee sheeka kala ma haysa maanta taal marka bisha sagaalkeeda inta ka horeysa shirka House of Parliament ayaa waxa ka dhacaya debate markii hore loogu talagalay Soomaaliya laakiin iminka waxay ku socotaa Somaliland iyo Soomaaliya waayo سوغان وسبران هلكن بتاعنا شركاس قال لك الدنبا أيو كذا عيا وقت جاس as an activist رجينا المركز حسب activist قوى circulation كوديس إيميل كرينا يا أخوة مركز إيميل قاعد يكتب حلقة بصارين يقول لي MP كاستان ده خلك شغالين عكتور وحركة قوي وسفرنا وشغالين نوي ما هذا شغالين نوي واترنا إلى مرة محنوق وكذب بالكره لما كنسبت كينا وأنا كي حرمة دبيس 1960 كوينا القاعدين مركا حلقي أين القاعدين أين فرق القاعدين MP نقول MP يسمى كوتها حوالي حنا لا تمام هذا هو حوالي هدي وواحد يكتبون لي individual constitution أنا كوي ده شيء هو وحنا ما قالنا كفوت كينا وكان كتب حياة خميس هنا هذه نيو قف بحاصل بارلمنت لوران يو بقي كرتا الباب وكفر يا وين قال كرتا لوبي لوبي هو كان وين قضية اللي وين بيبكر فركا تاسوا بارلمنت أوردي واحد اشترك بدل هيك المانتي نوع ورسوا مع اللاندرة أو عتان OMPيات ما هي institutional المانتي حكومة الإنجليز كوا ما هي شوجة وين ممكن يكون ما يعد هي الوحيد هالكاس رابط حقوق الرسول مالنا واحد خلق يعني سين بلوتشت أيام ترى وحوي رجعنا شو اسمه لا كل شيء ملك الإيجي كواس الله يابنا مركا رجع سيهاد بيني شقد ودينا بره عندنا ما يسوي مدحوية أمريكا حين يجيو حين الرافس أيوة عم يسوي أو شو دي واحد يشقد ودي واحد الدنيا أنا وواحد نبغى الدنيا شركة أمريكا البوانات كسر بحا فيش 6 حلوات كده دام كسر الخضار يو أنت نقول بيني يو أنت ما كان ماندي هان لقيه ليه وماندي توقف كسر بحياة وحي سؤال أريموي كاس عليا حرب أوتي يمكن أن توديسا لكن شقادين تعالى شقادين تعالى أمباسطور أحمد عمر آديات بدومات سنتين وحن جعلنا الله هنا كسور ويو وقت قلنا رهانتي وكبية وقت القابل قاطع محمد يونس وزير فيها نقول يعني فيها زين
الله الرحمن الرحيم. دمانتين وان السلامية. كنت وحاجة شرطينا ممكن نرفض القلم. شبينا هي لانتي UK. لانتي UK ونسلقنا نوع على 2002. I think December state كده بفكرها. أنا مسيبه حماية شنو بيرمي كلام ونرجع. استراجل وين بالصومرني وين كل سنوية يجوني وأنا إلهي بحكي من مانتا أنا مدي ضغط أنا محافظ أنتي ترى ضغط أنا كنتي واحد بدن بشكل سبدل فيه أي حاجة قادمة سف عن وكنتي آبي حوالي وصغيره أيوم صعدة وإن كذا يكتي سومال بنسيت هاي مانت يصير الشغل تاعي هاي والإكسام وكسر قاطع تاني كمدة بيصير شكل سبحان الله واتنكا سيدا أمد أكتروجات تقول هاي حسبيدي يبرلمان كي قولي قلتي له وهذا الإتهام كما تأمل نقول حسبيان نقولنا وهذا سياسي تذكر مقرنسا وهذا بالشدة ثم كذا نيرada odayaasha culimada sida dhammaantood baa dawladdu u martigelisay si tala wanaag looga yeesho arrintaa runtii wax lagu faani karo shalayta waxaan ogeyn in ay xukuumadii nagu horreysay ay oran jirtay waa dalkaana ka madaxweynaha marka waxaan doonaan ku talinaya maanta waxaad aragtaa in madaxweynuhu ilaa iyo qof kasta uu access u siiyey inuu talo ku yeesho runtii waa isbeddelkii aynu filaynay dadkan ballan qaadnay tii baynu kaga rumaynay 23-kana waxaanu imanaynaa inagoo dalkii somaliland oo isku dhanaa oo weliba isku dhafana qadiyadeedna aynu halkaa uga jeedsanaynaa oo ay noqonaysaa fursad runtii dahabiya oo aynu u bandhigayno caalamka kayskeena iyadoo la ogsoon yahayba haddana meel dhowr iyo 4 dowladood imanayaan oo weliba kuwii wuxuu imanayaan waa fursad runtii aada u wanaagsan inaynu ka qayb galno hadalka waan soo koobayaa waxaan idiin rajaynayaa guddiga cusub ee la dooran doono inaa halkan beddelin weyn oo imika waxa weji cusub baa la galay dhowr iyo 10 ururo damba ayaa beddelin tartamaan sidii hore ma aha oo waanaynu naftigeenu la nimaadnaa hab kale oo habkii hore ka beddelan oo duruufii berigii taagnaa ma taagna waan xisbigu runtii uu ku dhisnaadaa imika subscription iyo dhaqaale joogto ah iyo inagoo gacanta isqabsanna iyo inagoo fikrado cusub la nimaadno oo dadka qorsho cusub u samayna ayaa dadka ka iibin karnaa marka waxaan filaya waqtigii salaadna way dhowdahay guddidii hore iyaduna xilka inoo haysay dadku waxa fiican in haddii wax fiican qabtaan in loo mahadnaqo halkan waa iyagana waa mahadnaqaya intaa ka bacdi waxaan leeyahay si fiican buu noogu dhacaya si fiicanna waa loola guddiga ballanqaadada way mahadsan tahay halkaana waddanka laga sii wado guddida cusubna yaa lagaga tegi xilka gacanta haloola qabto garabka haloola qabto halala shaqeeyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله mahadsan yahay runaatii waxaa taagan waqtigii salaada maqrib waxaa fiican markaa inaynu salaada tukado ma dhowa okay okay haddaba waxaan siinayaa iminka axmed xasan carur okay mahadsan بسم الله الرحمن الرحيم
الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan dhammaantiin ku salaamayaa salaanta islaamka dadka sharafta leh ee reer kulmiye marka ugu horeysa waxaan mahadnaq xoog loo soo jeedinayaa guddida qabanqaabada ee shirkan inoo qabanqaabisay waxa kale aan mahad soo jeedinayaa weyn dadkii xilka soo hayay ee guusha keenay oo ah guddidii hore ee xisbiga kulmiye UK oo anaguna aanu ka mid ahay inuu Britaniya jiray guushii aynu mucaaradka kaga baxnay aynu xaafidka ku noqonay guddidaa keentay baan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa waxa kale iyagana qodada xilka la wareegi doonta oo dee hawl cusub ay la gudboon tahay oo ah challenge weyn lagu samaynayo maanta guddidii oo aanay xisbiyada ahayn saddexdii xisbi ee ururo badan oo dardar cusub oo qabo oo rag cusub ku jiraan oo rag lacag ku jiraan oo rag wadaadi ku jiraan oo rag dhalinyaro ku jiraan dumar maxaa la yidhaahdaa xildoon ku jiraan noocyo fara badan leh ayaa xisbigii magaranaysa challenge gareynaya maanta kuwaasina waxa weeye hawl weyn oo culus baa maanta iyo kor taagan in xisbigii muxaafidka noqday uu saaqido oo uu ka sarqiyo xisbigii waxay noqonaysaa ceeb weyn oo runtii aan ka hadhaynin guddiyada iyo ragga maanta xilka la wareegaya waxaan u rajaynayaa insha Allah inay noqdaan dad ku guuleysta oo xisbigu inuu sii xoogaysto mooyaane aan hoos u dhicin dawladda aynu maanta aynu hayno oo ah dawladda xisbiga kulmiye ah sidoo ambassadorku sheegay waa inaynu ogaanaa inay yihiin dawladda xaakimku xisbiga ay ka timi iyo xisbiga loo fooday ee codka lagu siiyey ee madaxweynuhu ku guuleystay inuu yahay xisbiga kulmiye marka waxaynu iibin karaa aynu dadka ka dhaadhicin karaa waa waxqabadka dawladda marka muxaafid tahay oran bay sida anigu kulmiye iyo dawladdu way kala socdeen wax laynaga yeelayo ma aha marka reer kulmiye waa inay ogaadaan haddii qalad ay arkayaan inay dawladda u sheegaan qaladkeeda waa in magac iyo maamuus iyo waxqabad iyo qiimeyn inta waxa laynagu qiimeynayaa maanta waxa weeye xukuumaddu waxay qabato wixii marka ay qabato waa inaynu ku faano oo kulmiye uu hormood ka noqdaa iibiyaa waxqabadka dawladda wixii dhaliilay leeyihiin waa inuu sheegi karaa waa inuu jiraan dariiq ay ku wada xidhiidhaan xukuumadda iyo xisbiga way laba kala maarmo ma aha dawladduna shacbigii waxa uga wakiila xisbigeeda xisbiguna wuxuu guul ku helayaa waxqabadkii dawladda marka waxa la waxay dawladdu qabato waa inay nagu noqonaa dadkii meel walba la taagnaa waxqabadka dawladda wixii dhaliil aynu haynana aynu dariiq u marro waa inay la sameeyaa xukuumadda waxaa waajib ku ah inay dhegaysato xisbiga inay gaar ula shirto wasiiradu markay yimaadaan waa inay qiimeeyaan xisbiga waxaan xusuustaa su-aal la weydiiyey madaxweynaha maalin waraysi laga qaadiyey oo la yidhi wasiiradaada rag baa la leeyahay xisbiyay leeyihiin wuxuu yidhi anugu wasiirada nin aan ka yeelaya aan xisbiga kulmiye wasiiradeeda aan hayni ma jiro wasiiradeedu waa xisbi kulmiye marka taasaynu doonaynaa inay iyaguna qaataan aynu ku wada shaqayno laakiin waxa inagu waajiba oo aynu kaga duwannahay markii hore waxaynu ku dhisnay subscription baynu ku dhisnay xisbi mucaarad aynu ahayn aad bay dadku u dadaaleen dadaalkii haddaba maanta la dadaalay gudahana xoog baa shaqaalaha iyo maxaan ku idhahdaa shaqaaluhu waa dad qaar nin walba xisbiga doonu gelaya laakiin magac weyn oo xisbiga waa laga iibin karaa markaa subscription in gudahana laga bilaabo kolley guddoomiye muuse bixi oo filaayo inuu waftiga soo raaci doono tiro badan bay inoo qaban doonaa waxaa la qabanqaabinayaa shirweynihii golaha dhexe lagu dhisi lahaa ee xisbiga howlo badan baa bilahan soo socdaa xisbigu u geli doonaa taageero markaa dhaqaale oo xooga baa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay inay noqoto aynu u horseedno ummadda in xisbiyadu ay yeeshaan dhaqaale joogta ah oo ninka membarkii aanu noqono nin magacun iskaga jira xoogaa yar intuu iska baxsho intaa bixisa ay voodka yeelato oo haddii ilaahay idmo doorashada taa xigta aynu kaga gudubno shirar dibadda lagu qasay ciddu ay tartan xalaala inta halkaa dhigtaan laba sanduuq loogu goyo guddiyada oo doorasho xalaal oo ku gallo gudaheena ayay tahay in hadafkaa yeelano oo inu hormood ka noqono inaynu dimuqraadiyadda hoos u daadajino oo xisbiga gudihiisa aynu dimuqraadi ka dhigno waxaasoo dhan waxa weeye xil dadka xilka maanta qabanaya ay tahay inay runtii ay ku dadaalaan marka anigu inta badan waxaan jeclaa inaan taa xisbiga un inta aan ku koobo oo ka soo hadlo xaggan kale ee dee siyaasadda waxaa qoladii wasaaradda khaarijiga ku leeyihiin ambassadorkii waa kuwa inoo warramay warkaas waxa weeye taageero maanta somaliland oo wada dhan oo bari iyo galbeed iyo maxaa la yidhaahdaa saddexdii gore iyo golayaashii salaadiinta iyo golayaashii dhalinyarada iyo
civil society intoo dhamma madaxweynuhu ka talageliyey talo ballaaran baa laga yeeshay cid lagu eedeyn karo iyo cid waddanka laga xigiyey cid marti loo yahay ma jirto markay hawl qaran timaado mucaarad iyo muxaafid waxaan isku wada raacay dhammaan in hawshaasi laga midho dhaliyo oo inu shirkaa ka qayb galo sida aynugu midho dhiganahay inaynu soo joogno dee dhammaanteen waxaan idiin rajaynayaa guul iyo insha allahu tacaala xisbigeena oo kor u socda iyo magaca xisbiga iyo xukuumaddooda iyo isku xidhnaansho xoogla aynu sameyno dadaal baan inoo rajaynayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu marlabaad baan soo celin lahaa haddii ilaahay ka dhigayo salaadu ma 5 iyo 10 baa way taagan 10 minute 10 minute bay ka badsanayna salaada 10 minute baan qaadanayna salaadu tukanay ياسين شارع المفاتيح ياسين انت مدون رشقي بري دمور سنه شرمارك محمد ديني كلام ما هذا سوق هذا سوق يا شرمارك حقيقه كلام ما على الحمد وانا قاعد على الرياح على الرياح بس ما قاعد ولما اعرف ايش على فين تشوف الدنيا طبعا قاعد نقول هاي انت وحياتها انت قصوا عليه ولا شيء كويس وحياة انت مضن انت مثلا عياش قاعد حاضريو قلت له مركي بري اذا انا بركيسيه هذه ولا بري و 2010 مثلا سنه جتروهي ولا بري ما كان صوتي كنت نهاس كنت ادم تمرشقين كنت ادم مشكله وحكم عمر احمد وحكمنا هذا كلمه وحكمنا محمد حاج هذا وحكمنا اسماعيل حاج تشير ولد شوقه صباح حسين الله عبد الرحمن إيمان عبد الديار يوسف شايرة أحمد كيسي أحمد محمد حسين قدر محمد عصام محمد مؤمن